Assalaamu calaykum saaxiibayaal, waa maalin cusub, saacad cusub, fiyo cusub iyo qayb cusub. Waa qaybtii shanaad ee buugga qisooyinka nebiyada. Halkani waa hoyga buugaagta taxanaha ah ee nooc walba leh. Halkan waxaa joogta ugu soo gudbinaa buugaaga xiriir ah oo aan halbogna laga boodayn. Dadka qaar waxa ay dhegaystaan soo koobida buugta, laakiin malaha wax faa'iido ah buug la soo koobay. Buugga aad halkan ka dhegaysatid waxa ugu xisaabtamaysaa in aad akhrisay oo kale marka joogtayso barteena YouTube ee ogaalsida miidiya. Maantana waxaa akhrin doona laba qiso oo kala ah qisadii Nebi Ibraahim iyo qisadii Nebi Ismaaciil. Marka fadlan la soco buugaagta aan halkan ku soo gudbino, waxayna ku bilaabaynaysaa sidan qisadu. Ogeysiis horta ma ogtaha qofka buugta akhriya ama dhegaysta waxaa kordhaya garaadkiisa, waxa uuna noqonayaa qof aad u kalsooni badan oo ka sareeya dadka uu la nool yahay. Marka daawade waxaa ku rajaynayaa in aad noqoto qof garaad badan. Taariikhaha adduunka la socda buugaagta halkan kala socda iyaga oo dhammaystiran. Haddana noo bilaaba qisadeena. Waxay ku bilaabanaysaan sidan: qisadii Nebi Ibraahim iyo Ismaaciil. Dadkii hore ee deganaa Baabil, Ciraaq, jasiiradda Carabta iyo Shaam waxay caabudi jireen sanamyada, meerayaasha iyo Nebi Ibraahim calayhi salaam wuxuu ku soo barbaaray dhulkaasi. Allah ayaa hanuuniyey, wuxuuna u doortay inuu noqdo rasuul iyo nebi. Nebi Ibraahim wuxuu gudagalay inuu qowmkiisa ugu yeero inay caabudaan Allah oo keliya, oo ay ka tagaan sanamyada iyo meerayaasha ay caabudayaan. Wuxuu Nebi Ibraahim isku dayay inuu xujada ku ogo qolada meerayaasha caabuda iyo sida ay u fekeraan si ay u gartaan in hal ilaah oo keliya oo ka jiro kownkan. Nebi Ibraahim wuxuu eegay samada, wuxuu arkay mid ka mid ah meerayaasha. Kolkaas buu yidhi, kani waa rabbigay. In yar kadib meerihii wuu qarsoomay. Kolkaas buu yidhi, kani ilaah ma aha. Wuxuu mar kale arkay dayixii oo ifiyey mugdiga habeenka. Kolkaasuu yidhi, waa kan rabbigay. Haddana wuxuu yidhi, kani ilaah ma aha. Waa berigii waxaa soo baxday qorraxda. Kolkaasuu Nebi Ibraahim yidhi, waa kan rabbigay. Qorraxda ayaa ka weyn kana iftiin badan dayaxa iyo meerayaasha. Intaasi wuxuu uga jeeday in uu tuso xujada ay ku andacoonayaan. Fiidkii markii la gaaray qorraxdii ay gabalkeeda dhacay, wayna qarsoontay. Nebi Ibraahim calayhi salaam wuxuu u sheegay kuwii caabudi jiray meerayaasha in Allah uu yahay kan abuuray qorraxda, dayaxa, samadaha iyo dhulka. Sidoo kale Allah subxaanahu wa tacaala oo keliya ayaa ah kan xaqa lagu caabudo. Alle ayaa ka weyn wax kasta, ma suulo, ma maqnaado, mana hurdo sida ay u suusho dayaxa, u qarsoonto qorraxda, makhluuqaadkana u seexdaan. Qowmkiisa ayaa la dooday. Si kasta ayuu isugu dayay inuu diinta ugu yeero, balse way ka madax adeegeen burburintii sanamyada. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Nebi Ibraahim wuxuu u tegey qowmkiisa oo caabudaya asnaamta. Kolkaasuu u naseexeeyey oo uu ku yidhi, waxa aad caabudaysaan waa maxay? Waxay yidhaahdeen, waa ilaahyadeenna iyo ilaahyada aabbayaasheen. oo ma waxbay arkaan misena maqlaan? Waxay ku warceliyeen, waa ilaahyadeenna. Nebi Ibraahim wuxuu yidhi, Allaha Rabbiga caalamiinta ayaa ah mid xaq lagu caabudo. Allihii abuuray ayaa igu hanuuniya wixii wanaagayga ku jira if iyo aakhiro. Isaga ayaa i quudiya haddaan xanuunsado. Isaga ayaa caafimaad i siiya. Isaga ayaa i oofsada markay ajashaydu timaado. Isaga ayaa dib nolosha iigu soo celinaya markii la gaaro xisaabta. Alle ayaan ka rajaynayaa inuu dembigayga dhaafo maalinta qiyaame. Dadkii sanamyada caabudi jiray waxay ku adkaysteen falka ay ku jiraan. Nebi Ibraahim wuxuu ku talogalay inuu burburiyo asnaamtaasi. Maalin ciid u ahayd, dadkii reer Baabil waxay aadeen magaalada dhinacyadeeda, waxayna Nebi Ibraahim ku yidhaahdeen, na soo raac. Nebi Ibraahim baa ka cudur daartay oo yidhi, waan xanuunsanahay. Dadkii baa firaaqeeyey magaalada, waxayna noqotay meel aan cidina joogin. Nebi Ibraahim baa u dhacdhacay halkii ay sanamyadu ku jireen, wuxuuna ku burburiyey faas. Markii uu dhulka dhigay sanamyadii, wuxuu soo reebay midka ugu weyn. Faaskii ayuuna qoorta u suray. Dadkii ka maqana markii ay yimaadeen way la amakaageen wixii lagu sameeyey sanamyada. Waxay la sii fajaceen markii ay arkeen sanamkii weynaa oo qura inuu joogo isaguna faaska qoorta loo suray.
nin dadkii goobta yimid ka mid ahaa baa si xanaaq leh ku qayliyey, yaa sidan ku sameeyey? Ilaahyadeenna, cidda sidan samaysay waa cid xadgudubtay. Waxay soo xusuusteen Nebi Ibraahim oo horay u ballanqaaday in uu burburin doono asnaamtooda. Markii ay u yeereen waxay ku yidhaahdeen, ma adiga ayaa sidan sameeyey Ibraahiimow? Wuxuu ku jawaabay, midkan weyn baa sameeyey, inta uu farta ugu fiiqay sanamka weyn ee. Weydiiya hadday hadlayaan. Dib bay ugu laabteen. sanamyadii ma hadlaan, ma cunaan, mana cabaan, sidaa ay tahayna ma aysan rumayn. Nebi Ibraahim oo dab lagu tuuray. Markii uu Nebi Ibraahim burburiyey sanamyadii, una sheegay qoomkiisa in asnaamtu aysan wax tarin waxna dhibin, waxay ku adkaysteen sanamyadooda, waxayna ku talagaleen in Nebi Ibraahim lagu tuuro dab holcaya. Waxay yidhaahdaan, hala gubo oo ilaahyadiina u gargaara. Waxay soo ururiyeen xaabo tiro badan, wayna huriyeen ilaa ay karkarto. Kadib waxay keeneen Nebi Ibraahim oo xarig ku xirxiran, waxayna ku tuureen dabkii holcayay. Isaguna wuxuu yidhi, xasbiyallaahu wa nicmal wakiil. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa u waxyooday dabkii oo ku yidhi, dabkow u noqo Ibraahim qabow iyo nabadgelyo. Nebi Ibraahim wax dhib ah ma uusan arag, wuxuuna ahaa mid iska tasbiixsada ilaa dabkii uu damay, wuxuuna ka soo baxay isagoo badqaba. Waxaa gubtay oo keliya xargihii isaga lagu xiray. Nebi Ibraahim waxaa rumeeyey uun xaaskiisa Saara iyo wiilka walaalkii dhalay ee Luud. Nebi Ibraahim iyo Namruud. Namruud waxa uu ahaa boqor daalim ah oo gaal ah. Waxa uu sheegan jiray ilaahnimo. Waxa uu tegey oo dacwaddii ula tegay Nebi Ibraahim oo u sheegay in uu jiro hal ilaah, waana Allihii abuuray koonkan, samadaha iyo dhulalka. Namruud baa wuxuu yidhi, waa kuma rabbigaaga Ibraahimow? Wuxuu Nebi Ibraahim ku jawaabay, rabbigay waa kan wax nooleeya waxna dila. Namruud waxa uu yidhi, aniguba waxbaan dilaa oo nooleeyaa. Kolkaas ayuu Namruud u wacay 2 nin oo xabsiga ugu jiray, wuxuuna ku yidhi, mid ha la dilo, kan kale ha la iska fasaxo. Nebi Ibraahim oo la yaaban caqliga yarida ninkan, waxa uu ku yidhi, ilaahay cadceeda ayuu bari ka soo bixiyaa, ee adigu galbeed ma ka keeni kartaa? Kolkaas ayuu wareeray Namruud, waxa uu ku hadlo ayuu garan waayey. Nebi Ibraahim oo ay la socoto xaaskiisa Saara waxay u soo ambabaxeen Masar si ay dadka ugu yeeraan xagga Alle. Masar waxaa xilligaa ka talinayay boqor damac badan oo xoog ku qabsada hablaha qurxoon. Waxa uu isku dayay in uu ku soo dhowaado Saara oo ahayd xaaskii Nebi Ibraahim, balse wuu ku dhici waayey. Aad ayuuna u baqay. Waxa uu soo siiyey hadiyado fara badan iyo gabar jaariyad ah oo la yidhaahdo Haajar. Nebi Ibraahim iyo sawjadiisa waxay ku soo laabteen Shaam. Wakhtigaasina Saara waxba umay dhalin. Nebi Ibraahim waxay u hadiyeysay Haajara si uu u guursado oo ay u dhasho duriyad. Wakhti badan kama soo wareegan, Haajar waxay dhashay Nebi Ismaaciil calayhi salaam. Nebi Ibraahim oo loo bishaareeyey. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa Nebi Ibraahim u yimid rag aad u labisan oo qurux loo dhammaystiray. Nebi Ibraahim kolkii uu arkay martida u timid ayuu u keenay dibi buuran oo hilibkiisa la solay si ay u cunaan. Waxaase la yaab noqtay in raggii mid iyaga ka mid ah uusan gacantiisa u soo dhiibin cuntada. Nebi Ibraahim markii uu arkay arrinkaasi waxaa gashay cabsi. Waxay raggii u sheegeen in ay yihiin malaa'ig loo soo diray in ay soo halaagaan qoomkii Nebi Luud. Saara oo hadalkii dhegaysanaysa waxaa lagu yidhi, waxaan kuugu bishaaraynaynaa wiil inaad dhasho. Kolkaasay tiri, aniga oo dadan ah oo aan dhalin, odayguna duqoobay, miyaan ilmo dhalaynaa? Waxay malaa'igtii u sheegeen in ay bishaaradaasi xaq tahay oo xagga Allena ay ka socoto. Saara waxay dhashay Isxaaq. Nebi Ibraahim aad ayuu ugu farxay arrinkaasi. Nebi Ibraahim waxa uu soo raray Haajar iyo wiilkeeda Ismaaciil, isaga oo keenay meel aan biyo iyo baatoona lahayn, wuxuuna u sheegay in Allah uu amray arrinkaasi. Haajar waxay tidhi, haddii uu Alle ku amray nama hoojinayo Alle weyne. Nebi Ibraahim waa uu dhaqaajiyey. Biyihii baa ka dhammaaday reerkii. Xaaladdii way ka sii dartay. Ismaaciil oo gaajo iyo haraadla ooynaya ayay garan weyday meel ay ula kacdo.
alle weyne mucjisadiisu badanaa. waxaa goobtii ka dilaacay meel biyo ka socdaan. Haajar ayaa tiri Sam iyada oo ka baqaysa in biyaha ay ka dhammaadaan. muddo kadib waxaa goobtii soo maray reer geedi ah oo biyo doon ahaa. waxay Haajarka codsadeen in ay la soo degaan goobta weyne u ogolaatay. maalin maalmaha ka mid ah, Nebi Ibraahim waxa uu soo booqday reerkii oo muddo ugu dambaysay. waxa uu arkay Ismaaciil oo weynaaday. si weyn ayuu ugu farxay arrinkaasi. Nebi Ibraahim ayaa mar ku riyooday isaga oo qalaya wiilkiisa Ismaaciil oo uu dhalay isaga oo ah. riyada ambiyada waa xaq iyo waxyi xagga alle ka yimid. Nebi Ibraahim waxa uu hoggaansamay amarkii Rabbi, wuxuuna u sheegay wiilkiisa in la faray in uu qalo. Nebi Ismaaciil ayaa aqbalay amarkii waalidkii. inta uusan birta la fuulin, Nebi Ibraahim waxaa lagala hadlay xagga alle oo loo sheegay in uu ka dhabeeyey riyada, arrinkuna uu ahaa imtixaan uu alle imtixaanay nebigiisa. Nebi Ibraahim waxa uu arkay wan weyn oo loogu bedelay Ismaaciil. aad bay farxeen qoyskii Nebi Ibraahim. dhisida Kacbada. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u waxyooday Nebi Ibraahim iyo wiilkiisa in ay dhisaan beytka alle. waxay bilaabeen dhismaha iyaga oo ku ducaysanaya, Rabbiyow naga aqbal acmaasha wanaagsan oo naga yeel kuwo adiga kuu hoggaansama oo ikhlaas la yimaada. markii ay dhiseen, waxaa Nebi Ibraahim la faray in uu dadka ugu yeero xajka. wixii dad ah ee maqlay yeermadiisa waxay u yimaadeen xajka. ilaa maanta waa la xajiyaa oo beytka alle waa la yimaadaa. Rabbi suut mar uu ka warramay qisada dhex martay Nebi Ibraahim iyo qoomkiisa waxa uu yidhi, dhab ahaan waxaanu siinay Nebi Ibraahim hanuunkiisa mar hore, annagaana ogayn. markii uu yidhi aabbihii iyo qoomkiisa, waa maxay sawiradan taalooyinkan aad idinku dulfadhidaan? waxay yidhaahdeen, aabbayaasheenna ayaanu helnay iyagoo caabudaya. wuxuu ku yidhi, waxaad ahaateen idinka iyo aabbayaashiinba baadicad. waxay yidhaahdeen, ma waxaad noola timid xaq, mise adigu waxaad ka mid tahay kuwa ciyaaraya? wuxuu ku yidhi, Rabbigiin waa Rabbiga samooyinka iyo dhulka ee ah kan abuuray. aniguna arrinkaasi markhaati baan ka ahay. Ilaahay baan ku dhaartaye, waan shirqooli doonaa sanamyadiina kadib markaad jeesataan idinkoo tegi. wuxuuna ka yeelay burburkooda weyn mooye waxay u dhow yihiin inay isaga u soo laabtaan. waxay dhaheen, yaa ku falay ilaahyadeenii, kaasi waxa uu ka mid yahay daalimiintee. waxay dhaheen, waxaan maqalnay nin dhallinyaro ah oo hadal haya oo Ibraahim la yidhaahdo. waxay dhaheen, bal dadka hortooda keena si ay ugu markhaati kacaan. waxay dhaheen, ma adigaa sidan ku sameeyey sanamyaashayda? Ibraahimow wuxuu yidhi, ka kaalay. intaan sameeyey waxaa falay kooda weyn, bal weydiiya hadday hadlayaan. markaasay dib ugu noqdeen naftooda, waxayna isu dhaheen, war idinkaa daalimiin ah. kadib madaxa loo rogay, waxayna dhaheen, dhabbaad u og tahay in aanay kuwani hadlayn. wuxuu yidhi, ma waxaad caabudaan eebbe sokadii? waxaan waxba idin tarayn, waxbana idin dhibayn. uf baa la idin yidhi, idinka iyo waxaad caabudaysaan eebbe sokadii miyaydaan caqli lahayn? markaasay yidhaahdeen, guba oo ilaahyadiina u hiiliya. haddaad samaynaysaan ku dhaqsada. ilaahay wuxuu yidhi, waxaanu nidhi naaray u noqo qabow iyo badbaado. Ibraahim waxay la dooneen dhagar, waxaanu ka yeelnay kuwo khasaaray. sidoo kale alle suut mar uu ka warramayay qisadii Nebi Ibraahim iyo wiilkiisa Ismaaciil, waxa uu yidhi, waxaan ugu bishaaraynay Nebi Ibraahim wiil dabeecoosan markuu ku gaaray agtiisa socod. wuxuu ku yidhi, wiilkaygu, waxaan hurdada ku arkay anoo ku gowracaya ee eg. waxaad fali? wuxuu yidhi, aabbuu samee waxa lagu faray. waxaad i heli eebbe idankii inaan ka mid noqdo kuwa samree. markay isdhiibeen dhafoorkana u jiifiyey, ayaanu dhawaaqnay, Ibraahimow, dhab ahaan manaamkii waad ka dhabaysay, sidaasana ku abaalmarinaa samafalayaasha. kani waa imtixaan muuqda oo weyn. waxaanu ku furannay gowrac wan weyn, waxaana kaga tagnay kuwa dambe nabadgelyo. Nebi Ibraahim dushiisa ha ahaato sidaas ayaana ku abaalmarinaa samafalayaasha. wuxuu ka mid ahaa addoommadanada mu'miniinta ah. waxaan ugu bishaaraynay Isxaaq oo nebi iyo kuwa suubanba ah. waanu barakaynay Ibraahim iyo Isxaaqba. waxaana ka mid ah faracooda mid samafale ah iyo mid naftiisa ku gardarooda oo caddaysta.
maxaynu ka baran karnaa qisadani? hal waa waajib in la adeeco Allah oo amarkiisana la fuliyo wax kastana loo huro. 2 in carruurta lagu rabeeyo in ay maqlaan hadalka waalidkooda. 3 sabarku waa furaha farajka. 4 hooyadu kaalin ayay ku leedahay tarbiyeynta carruurta. 5 qoyska muslimka ah wuxuu iska kaashadaa wanaagga. 6 qadarinta iyo ixtiraamka waa astaan nebiyadu ay lahaayeen. 7 ilaahaysu waxa uu nebiyadiisa la soo diraa mucjisooyin. waxaa halkaa ku eg 2 qiso waa inoo iyo kulanti dambe iyo qaybta 6. fadlan muuqaalka like saar oo channelkana soo subscribe garayso mahadsanidin.